السلام عليكم. كدب سجال سنة لقى صوب الله بالله بكون سدح يطبن إلى الله بكون لبق يلباتن وأنا هدير جوجنو وحميش اسكو صوف جرمي حلو حكومات مدحوين هوريكيا وهورو كينياتا وحسوقات اللبا حلو حكومات وصو حكومي كينيا ويليام سمو أرب روتو وشخصي هدير لو دورتي هجامين تودنك كينيا muuqaal kan waxaan wax uga dhahaynaa doorashadii maalmo ka hor ka dhacday Kenya sidoo kale inta aan muuqaalkan ku gudi jirno waxaan hore isha ugu sii dhufanaynaa taariikh madow uu soo maray shakhsigan hadeer la doortay William Ruto taariikhdaas waxa laga yaabaa in ay wax badan ka bedesho afkaarteena waxa laga yaabaa in ay wax badan ka bedesho waxa aan ka aaminsanahay dalkanada Soomaaliya iyo guud ahaan waxa aan ka aaminsanahay qaaradda Afrika taariikhdaas aan isha ku sii dhufan rabno waxay bedeli doontaa afkaarta ku xirxiran waxay bedeli doontaa afkaarta ku xeendaaban dhalinyarada Soomaalida ah oo gacmaha isa saartay qaarkoodna afka saarteen Yurub iyo Ameerika iyagoo isu dhiibay tahriib iyo bahdil una dhaxeeya nolol iyo geeri muuqaalkan waxa idin soo gudbinayo anigoo ah Umar Maxamed waxaana idin soo marsiinaya kanaalka Garwaaqsi ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta أخياري سي أن حاضر كتاغن أفهنو وحا واجب نقوه إن أندب أقلابنا التاريخ ده موضوعا هكذا نوصار أما هكذا نوده حقارا كل هدلو دابا ده وحالغا يابا إنا دسلاذا هاي إناغا محان نغا غلي هدي إدورشا كي كدع دي إناغا كسومالي أهم محان نغا غلي وغاشدي دونو محنو كفائدينا وينوغو سوكر دينيسا walaal hadii aad sidaas isleedahay xaalku sidaas ma ahan isku day inaad arinta ka eegto zabaaya mukhtalifa dhowr dhinacnaad ka eegto isku day Kenya daris ahaan marka loo fiiriyo waa dalka inoogu dhow dalalka caalamka maadaama ay jirto xiisad gaar ah oo nagala dhaxaysa shacabkaas Kenya sidoo kale hadii uu maanta barakacyo kala orod uu ka bilowdo Kenya dalka ugu horeeyay ay u kala carari karaan waa Soomaali sidoo kale inaga ka Soomaali ahaan waxa macquul ah in ay saamayso dhibaato waliba oo ka dhacda Kenya waayo daris ayaan nahay waana isu dhownahay intaas waxa ka daran kumanaan Soomaali ah ayaa ku sugan gudaha dalka Kenya oo ganacsi waaweyn ku leh hantidoodana meesha حتى علماء الصومالية كوبا وجوابين كوبا وجودور كرون وحكوا سجينهم جذاها كينيا عاصمة كينيا مجال نيروبي علماء النذي أوبابينيد وحولي بأي لكل مكان هدي كينيا دبعتها كدعو مركا أرنت أنه كلفي كرت إن كهذا لنا وحولي بكينيا كدع أنت صيا كمية إي وحيابك لفر بدن لكن أنا شيءين دابده هكذا كأنه قد موضوع أنا صلى بنا موضوعنا سانسو شيءني سأن حاضر كانوا أجان ونفهنه وحقصب إن أدب أقول بنا تاريخ ذي هوري sanadkii 2001 Uhuru Kenyatta waxa loo doortay baarlamaanka Kenya muddo kadibna waxa loo magacaabay wasiirka dawladda hoose bishii December sanadkii 2002 xisbi ka jiray Kenya oo magac ahaan loo yaqiinay KANU xisbigaas waxay madaxtinimada u soo sharaxeen Kenyatta laakiin kuma uusan guuleysan inuu noqdo hogaamiyaha Kenya guuldaradaas kadib Kenyatta wuxuu noqday hogaamiyaha mucaaradka maadaama uu waayay hogaamiyaha guud ee wadanka wuxuu noqday hogaamiyaha mucaaradka ka jiray dalka Kenya sanadkii 2008 Kenyatta wuxuu noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka Kenya 4 Maarso sanadkii 2013 wareegga koowaad ee doorashada Kenya waxa u tartamay ama u loolamay Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta guddiga doorashada waxay ku dhawaaqeen inuu guuleystay Uhuru Kenyatta wuxuu helay 50.07% oo cod ah 4 sano kadib Kenyatta markii u dhamaatay 4 sano xukun ee loo soo doortay 11 Agoosto sanadkii 2017 guddiga doorashada Kenya waxay ku dhawaaqeen in mar labaad Kenyatta uu ku guuleystay hogaaminta iyo xukuumadda dalka Kenya laakiin markan percentage-ka uu helay wuu ka duwanaa percentage-kii hore markan 2017 wuxuu helay 54.27% sanadkan 2017 Kenyatta waxa aad u la loolamay ulana tartamay Raila Odinga isagana wuxuu helay 44.74% 4 sano kadib sanadkan 2022 hogaaminta iyo madaxtinimada Kenya waxa isku qabsadeen laba qof oo kala daran Raila Odinga iyo William Ruto marka aan ku leeyahay laba qof kala daran waxaan ula jeedaa Odinga oo muddo dheer u halgamay una tartamay inuu mar u noqdo madaxweynaha Kenya ilaa wuxuu u soo tartamay 4 xili laakiin uu ku guuldareystay iyo William Ruto oo isagana ah hadeertan madaxweyne ku-xigeenka Kenya Uhuru Kenyatta isaga xaq uma lahan inuu mar saddexaad isu sharaxo madaxtinimada Kenya لأنه wuxuu soo qaatay laba xili xukun 2013 ilaa 2017 2017 ilaa 2022 oo hadeertan ay doorasho Kenya ka dhacday
waabaxay gaaladu isku afgarteen in laba xilli xukun kadib uu madaxweynaha u loolami karin una tartami karin in mar saddexaad uu noqdo madaxweynaha dalkaas almuhim loolan dheer kadib iyo xifaaltan dheer kadib guddiga doorashada Kenya waxay ku dhawaaqeen madaxweynaha cusub ee Kenya inuu yahay William Ruto codeen ahaan wuxuu helay 50.1% halka Odinga uu helay 48.8%. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. shaacinta natiijada waxaa xigay hadalkii William Ruto wuxuu aad ugu mahad celiyay guddiga doorashada ka guddi ahaan ayuu ugu mahad celiyay sida weyn ay u ilaaliyeen una dhowreen hanaanka doorashada Kenya Ruto wuxuu sheegay inuu rabo inuu madaxweyne u noqdo dhammaan dadka Kenyaatiga ah uuna rabo in dalkiisa uu diiradda saaro mustaqbalka ku soo foodan Ruto hadalkiisa wuxuu ku sii daray wuxuu yiri waxaan rabaa inaan la hadlo dadkaas mucaaradkeena ah oo dhibaatada faraha badan nagu qabtay dadkaas inaan loo baahnayn inay cabsadaan inay baqdaan oo aynan jirin wax argoosi ah Ruto wuxuu yiri hadal inta badan madaxda caalamka dhahan kadib markii la doorto wuxuu yiri ma haysana waqti raaxa ah oo aan gadaal ku eegno oo ka dhigan hore ayaan dalka u sii wadaya waan horumarinaya waa hadalka ay madaxda marka la doorto ay ku hadlaan oo yaani marka warbaahinada ku soo wada cararaan waa hadalka ay iyaguna ku qayliyaan dalka ayaan horumarin inta ayaan ka bixi dhalinta shaqayaan u sameeyeen iyo waxaas hadalkaas la mid ayuu yiri dadyo badan oo Kenyaati ah ayaa u dabaaldegay guushii William Ruto dhanka kale taageerayaashii Odinga waxay mudaaharaad ka bilaabeen galbeedka Kenya caasimadda Nairobi. Protests raged in Odinga's Nairobi stronghold, Kibera, and 4 out of xitaa waxay fowda ka dhacday hoolka ay doorashadu ka dhacaysay iyadoo ay jirtay eedeen ah isdabamarin lagu sameeyay codeynta. Not even the harmony of the choir could keep the peace. A moment of contention that many had anticipated and feared in the most formal environment and streamed live to the nation. saaxiibayaal ina keena aan isha ku dhufane taariikhda madow ee uu soo maray William Samuel Arap Ruto. William Ruto 55 jir siyaasi Kenyaati ah laakiin soo halgamay 21 December sanadkii 1966 ayuu dhashay William Ruto waxa la sheegaa Ruto inuu iskuulka aadi jiray isagoo xaafil qadameen ah isagoo kaba la'aan ah oo xitaa kaba uu xirta uusan haysan dadka qaar waxay ku sii daraan marka ugu horeysay uu kaba xirtay inay ahayd markii uu gaaray da'da 15 Ruto wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadka nolosha adag soo maray laakiin u socdaalay una dhaqaaqay in ay ka baxaan noloshaas adag Ruto wadada dhinaceeda ayaa wuxuu ku iibin jiray digaagada ama doorada saad u taqaanidba wadada dhinaceeda ayaa wuxuu ku iibin jiray digaagadaas iyo looska caadiga oo aan naqaano ayuu wadada ku iibin jiray kadib shakhsigan wuxuu galay halgan dheer wuxuu saaxada siyaasadda soo galay sanadkii 1992 wuxuuna sheegay inuu arday u ahaa ama uu ku soo barbaaray gacanta madaxweynihii hore dalkaas Daniel Arap Moi Ruto waa shakhsi aftahan ah yaqaanana sida loo hadlo waxa aad loogu yaqaanaa codkarnimada inuu yahay qof codkar ah hadalkana yaqiina sida loo hadlo qof yaqiina inuu yahay William Ruto waa shakhsi bulshaabi ah inta uu ku gudi jiray doorashada 2022 wuxuu soo jiitay oo uu kasbaday dadyo badan oo Kenyaati ah wuxuu dadka tusi jiray inuu yahay qof halgamaa ah shakhsigan aan ka hadlayno Ruto wuxuu xilal fara badan ka soo qabtay Kenya mar uu noqday wasiirka waxbarashada Kenya mar uu noqday wasiirka beeraha ilaa 2013 waxaa loo doortay madaxweyne ku xigeenka Kenya ilaa iyo hadeertan uu ahaa waxaa jirta xiisad kulul oo ka dhaxaysa Kenyaati iyo Ruto asal hore Kenyaati wuxuu la xiliifsanaa ama uu la bahaysnaa Ruto taageero buuxdana uu ahaa ilaa 2018 Kenyaati wuxuu si kadiisa u leeshiyay Odingahan wuxuu ku guul dareystay 4 xili ama 4 jeer uu isu sharaxay madaxtinimada Kenya qasaare ayaa daba dhigatay xitaa marka 2022 wuxuu taxaaluf ka helay Kenyaati laakiin qasaare ayuu madax la galay qasaare iyo qasaaro halka William Ruto ay tahay markii ugu horeysay uu isu sharaxay madaxtinimada dalka Kenya wuuna ku guuleystay dhalinyaroy nafsadiina ha ku haligina tahriib hana isdhihina Mareykan ayaa ka fiican Soomaali meel uu dhibka u yaryahay ma jirto meel waliban Allah ayaa joogo wax waliban Allah ayaa qadaro meel waliba aad joogtid wax waad qabsan kartaa isbedel waad sameyn kartaa shakhsi digaagad iibin jiray ayaa maanta ah madaxweynaha dawladdan ummadan horbada saaxiibayaal intaan in ka badan in muuqaalka uu dheeraado ma fiicna halkan ayaan ku joojinaynaa mowduuceena maanta waa walaalkiina Umar Maxamed wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh